culimadiinta gobolka Togdheer qaarkood ayaa maanta ugu baaqay shacbiga Somaliland gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan hawlaha dhismaha masjidka Anwar oo ku yaala magaalada Burco kaasoo dhismihiisu soconayay muddo haatan gaadhaysa 8 sanadood. Masjidkan Manaar oo laga dhisay xaafadda shacabka ee magaalada Burco ayaa ka mid noqonaya masaajidda ugu baaxadda weyn Somaliland taasoo haatan ay gacanta ku hayaan culimadiinta gobolka Togdheer qaarkood. Sheekh Ismaaciil Xuseen Madar Sheekh Ismaaciil Xule oo ah wakiilka dhismaha masjidkan ayaa sheegay in masjidkani ka mid yahay guryaha Ilaahay ee loo binaynayo in lagu caabudo isagoo tilmaamay in baaxadda masjidkan uu yahay mid aad u ballaaran kaasoo dhismihiisu socday muddo haatan gaadhaysa 8 sanadood. Sheekh Ismaaciil Xule waxa kale oo intaasi ku daray inuu ka codsanayo ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkani oo Ilaahay dhankiisa ay ka helayaan qofkii wax ku darsada ajar iyo xasanaad. waxa uu sheegay mu'miniinta bushaaro wanaagsan buu sheegay masaajidda Ilaahay waxa amira kuwa Ilaahay rasuul rumeeyay maalinta qiyaame qof Ilaahay marxaatigiisa oo ka marxaati kacay iimaankiisa qof muxuu ahaayay ka fiican ma jiro. waxaan dadka islaamka ugu baaqanaa masaajidkan oo la yiraahdo Masjidul Anwar oo magaalada Burco shacabka Burco ku yaala 8 sanadoodna qabyo ahaa in masaajidka nala qabyo tiraan oo ay nala dhameeyaan. waa masaajid weyn Somaliland masaajidda ka ugu weyn ama kuwa ugu waaweyn uu ka mid yahay hadaan ugu weynaan. waa masaajidka inta aragtaan ku fadhiya ilaa inta 9 balood oo qula inta lagu tukanayo guriyihii iyo malcaamadihii iyo madrasadihii iyo waxaasna waa dheer yihiin. waa masaajidka inta ku fadhiya. waxaan u baaqanaa dadka islaamka ah khayrka ayaa la isugu yeedhaa in masaajidka nala qabyo tiraan oo ay ka qayb qaataan. sidaas ayaan ka rajaynaynaa barakallahu fiikum. inna muxuu ahaayay akoonkiisa masaajidku waxa weeyaan 6868 dahabshiil Burco. dhismaha masjidka Anwar ee magaalada Burco ayaa isaga dhismihiisu soconayay muddo haatan gaadhaysa 8 sanadood isagoo u qabiyoobay kharashkii lagu qabyo tiri lahaa. waxaana si naxariis leh looga codsanayaa in qofkii jecel inuu ka qayb qaato masjidkan uu ugu soo hagaajin karo akoonka dahabshiil Burco ee nambarkiisu yahay 6868 ama adeega saad ee nambarkiisu yahay 4433 eber 87. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, Burco.